dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu si rasmi ah u shaqeynayo xilliga habeenkii garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kadib markii dhawaan lagu xidhay nalalka ifiya dhabaha ay diyaaraduhu ku wardaan. wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Salaad Omar ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Muqdisho uu wixii hadda ka dambeeya shaqeyn doono 6 subaxnimo ilaa 10 habeenimo. waxaan rabnaa inaan idinla socodsiino in garoonka uu shaqo bilaabay habeenkii kadib markii aan sameynay nalal ifiya dhabaha ay diyaaraduhu ku ordo, ayuu yiri wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka. sidoo kale wasiirka ayaa ku wargeliyay shirkadaha anteenooyinkooda ku yaala degmooyinka Wadajir, Waaberi, Hodan, Xamarweyne, Xamar Jajab iyo Wardhiigley in ay ku xidhaan nalalka calaamadaha si ay diyaaradaha u ogaadaan in meelaha ay anteenooyinku suran yihiin xilliga habeenkii. garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Aadan Cadde ayaa wixii ka dambeeyay burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya aan shaqeynaynin xilliyada habeenkii, waxaana garoonka uu shaqeynayay galinka hore ilaa iyo galinka dambe oo kaliya. tani waa guul u soo hoyatay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxaana mudan in la soo dhaweeyo isla markaana la muujiyo hididiilo iyo wanaaga si dowladdu ay u sii dhiirigeliso isla markaana u taaba qaadaan horumarka noocyadan oo kala ah.